haddii aad ka daasho samaynta camalada wanaagsan daalku baaba'aya laakiin camalada wanaagsan way harayaan haddii aad ku raaxaysato samaynta xumaan farxad way baaba'aysaa waxaa harayo dembiga dadku waa saddex qaybood kuwa ficilka iyagu sameeya kuwa aan waxba samayn oo iska fadhiya iyo kuwa yiraahda maxaa dhacay maxaa la soo sheegay saaxiibada beenta ah waa sida harka oo kale had iyo jeer way kula socdaan xilliga aad iftiinka ku jirto balse ma arkaysid saacadaha aad mugdiga ku jirto goortii aad qof u dhacayso waxaa siinaysaa nooca ugu saafisan uguna naxariista badan yaa hadalkaa tegin qof kasta tiisi ayaa haysata maanta waqtiga iyo waayuhu dadku waa u siman yahay ha xukumin qofna sababtoo ah waxay dembi u sameeyaan si ka duwan sidaad u samayso qof kasta wuu dambaabaa balse Allah subxaanahu wa ta'ala ayaa qalbiyada dadka xukuma ogna wax ku jira masaafada u dhaxayso riyadaada iyo runta waxaa la yiraahdaa ficil ha sugin in waqtiga sax kuu noqdo si aad isbedel u samayso ka bilow halka aad ku sugan tahay wax aad haysato iyo hadadan la joogo dabeecadaha ragga waxaa ugu liita ninka markuu asxaabtiisa la joogo qosolka badan la wadaaga balse markuu gaclisadiisa u tagana kelmad kaftan iyo farxad oran karin qaldaadkeeda qorta qaylo ugu daro iyo feer iyo farlaab romansi ma ahan oo keliya hab isa siin heesa dhagaysi shumac shidasho ee waa in qofku gartaa in nolol cusub u bilaabatay mas'uuliyad culus fuushay wixii hore joojiyaa daryeel iyo dadaal badan sameeya si adag u shaqeeya ogow haddii hadhow kiro guri iyo biil koronto la soo dalco hab baan ku siinayaa oo romantic baan ahay kaa bixin mayso waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan fadlan subscribe leh gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeyo like saar haddii aad ka heshay lana wadaag asxaabtaada si ay kula faa'iideystaan inta aan ku kulmi doono barnaamijka xiga waxa idinkaga tegayaa sida iyo fi amaanillah wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh